misleedahay qof baa jira diidi lahaa 1.5 billion dollars ninkan dhalinyarada ah ayaa sheekadaa sameeyey waxa uu diiday 1.5 billion dollars with b cidda uu ka diidayna waa Meta amaba ninkan la yidhahdo Mark Zuckerberg haddaba sababtu maxay tahay ninkan dhalinyarada waxaa la yidhahdaa Andrew Tullock waa AI researcher amaba dadkan AI-ga researchka ka sameeya weeyaan waxa uu bilaabay dhowaan waxay bilaabeen shirkad la yidhaahdo Thinking Machines marka OpenAI buu shaqayn jiray isaga iyo inan kale oo CTO ka ahayd shirkadda muxuu ahaaye OpenAI oo iyadana magaceeda la yidhaahdo Mira ayaa waxay wada bilaabeen shirkad la yidhaahdo Thinking Machines oo dhowaan heshay lacag gaadhaysa investment $2 billion haddaba Mark Zuckerberg ayaa dhowaan wuxuu ku dhawaaqay wax la yidhaahdo super intelligent AI amaba super intelligent team oo ugu talagalay in uu mustaqbalka AI-ga futurekiisa iyo mustaqbalkiisa oo dhan isagu gacanta ku haysto shirkadaha kale oo dhan wuxuu isku dayay inuu dadka ugu khatarsan amaba ugu wanaagsan ee ugu khibradda badan uu ka qaato ama uu ka soo iibsado isaga oo lacag maaragtay si unethical amaba aan akhlaaqda ku jirin ugala soo wareegaya haddaba dhowaan ayaa waxa uu bilaabay inuu dabadeed shirkadan la yidhaahdo Thinking Machines uu acquire gareeyo amaba uu iibsado laakiin way diideen markii ay diideen ka bacdi ayuu isku dayay qof ka mid ah inuu lacag u siiyo uu maaragtay u yeedho ninkan dhalinyarada ah markaa ayaa waxa uu ugu ballan qaaday in uu siin doono 1.5 billion dollars uu dhowr sannadood gudahood ku siin doono haddii uu ku soo biiro teamka super intelligentka ee Meta ninkan dhalinyarada ahina waa uu diiday oo muxuu ahaay wuxuu ku gacan sayday ma wuxuu waad maadsantahay uma baahni laakiin anigu waxaan aaminsanahay qofka mustaqbalka haddii maaragtay maanta haddii shirkadahaas la hubo in amaba shirkada waxa uu sameynaya la hubo inay mustaqbal fiican leedahay oo ay maaragtay mustaqbalka AI-ga iyo waxyaabaha maamuli doonaan amaba ay awoodda iyo gacanta ku haysan doonaan 1.5 billion iyo wax ka badanba wuu u qalmaa in maaragtay teamkiisa lagu soo iibsado dadka uu u baahan yahay bal markaa maxay idinla tahay